yaa ku sugan deegaano in ka badan 7 saacadood oo dagaalo oo ka dhacay waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya oo markaasi wada howlgaladii ugu dambeeyay ee dib ugu wareegayso deegaano ay markaasi ay iska baxeen shalay dagaalo in ka badan 7 saacadood ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada Maxaas ee bariga gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Teedaan ayaa waxa uu suurta gashay in xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay deegaanka la wareegaan warka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in markaasi xeelad dagaal ay isaga bixin deegaankan iyadoo markaasi la soo warinayo inay maanta ay wadaan dhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo ay markaasi ku soo afjarayaan xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo suurta gashay inay la wareegaan deegaano ka tirsan waa markaasi u dhow degmada Maxaas ee bariga gobolka Hiiraan militariga Soomaaliya qaybta 12aad ee markaasi ka dagaalamo gobolka Hiiraan ayaa war markaasi ka soo baxay waxay sheegeen in deegaano markaasi ka tirsan gobolka Hiiraan oo u dhow deegaanka Teedaan oo markaasi lagu magacaabo Suula iyo sidoo kale Xasan Raqay inay markaasi xeelad dagaal isaga baxeen haatan waxa markaasi ay wadaan dhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo ay doonayaan in markaasi ay dib u la wareegaan oo markaasi deegaanahaasi isaga baxeen gurmadyo kala duwan ayaa markaasi maanta gaaraya ciidamada xoogga dalka militariga Soomaaliya qaybta 12aad dhinaca kale waxa soconaya waa markaasi guluf ay wadaan ciidamada dadka deegaanka oo loo yaqaan Macawsleyda goor dhaweyd mid kamid ah dadka deegaanka oo qadka taleefanka aan kula hadalnay waxa uu sheegay in deegaanadaasi ay u suurta gashay in xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay la wareegaan dhinaca kale waxa uu sheegay in dadka deegaanka ay meesha isaga baxeen kadib dagaalo in ka badan 7 saacadood ka soconaya deegaanadaasi waxa uu tilmaamay in markaasi militariga Soomaaliya qaybta 12aad ay markaan wadaan duulaankii ugu dambeeyay oo ay doonayaan in markaasi deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan oo ay markaasi ay dib u la wareegaan dagaalo qaraar ayaa labadii maalin la soo dhaafay ka soconayay gobolka Hiiraan oo ay markaasi isku hor fadhiyaan militariga Soomaaliya qaybta 12aad oo markaasi garab ka helaya ciidamada dadka deegaanka loo yaqaan Macawsleyda iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab wixii inta ka dambeeyay dagaalada way si adkaadeen iyadoo markaasi in ka badan 7 saacadood ay markaasi isku hor fadhiyeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale militariga Soomaaliya qaybta 12aad waa war ka soo baxay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa iyagu sheegeen in deegaankaasi la wareegaan dhinaca kale militariga Soomaaliya iyagu waxay tilmaameen in xaalad dagaal ay markaasi deegaankan isaga baxeen dadka deegaanka ayaa soo warinaya in khasaare markaasi labada dhinac uu jiro manacada markaasi cid ka madax banaan labada dhinac oo sheegaysa khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi ka dhashay dhinaca kale waxa soconaya waan ay markaasi wadaan odayaasha dhaqanka oo ay doonayaan in markaasi ciidamada xoogga dalka militariga Soomaaliya qaybta 12aad iyo sidoo kale ciidamada dadka deegaanka ay ula wareegaan deegaanada ay markaasi qacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab goor dhaweyd qadka taleefanka ayaan kula hadalnay mid kamid ah dadka deegaanka waxaana markaasi hadaladiisii kamid ah in markaasi ay wadaan militariga Soomaaliya gulufkii ugu dambeeyay ku doonayaan in markaasi ay kula wareegaan deegaanadii ay xaaladda dagaal ay markaasi isaga baxeen maalinimadii xalay ahayd oo u suurta gashay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab inay markaasi ay kula wareegaan deegaanadaasi agaarka oo Teedaan la isku jira Teedaan hadda shabaab ku sugan shabaab ayagana meel 2 kiiloomitir u jirto aan ku ogaay dagaalada intaan anagu maqlaynay waa dhacaan aw ayna oo qasaarana waa jiraan intii leegihiin hadda laakiin ma sheegi karo marka ma hayo macluumaadkeeda iyo waxay damacsan tahay ma hayo hadalka on sida wax u dhacayaan iyo maaragtay aan kor ka ognahay dawladana waxa waaye dadkan hadda shacabka ah oo deegaanka ay wala dawladda horta cid kamid ah ama madaxa ogaa karta waxay wadaan oo dawladda waxay sir waay ma garan xalliga maxaa la qabtay ka bacdiisa degan dawladda aad u dhaleelsan yahay wuxuu ku dhaleelsan yahay bashan qayb aad deganeed qaybta 12aad xaruntii qaybta 12aad ay ahaday dagaal yar oo ka dhacay shalay xilli yar oo kooban oo hal saac aan dhamayn dagaal dhacay oo aan isleenahay dadka galay urur ma dhamo ciidanka galay hal urur ma dhamo in dawladii dhameed soo jabto oo ururkii la soo jabto amaba halkii horin oo dagaalkii gashay la soo jabto aad u dhaleelsan dawladda waxaan ku dhaleelaynaa xaruntii weyneed oo maaragtay qaybta 12aad nimanka oo lugeynayo jamhadda oo
gacnaha ku sita oo maaragtay doodka biyaha ku sita oo booyad wadan oo gaadiid wadan oo lugaynayo in ay ka soo jabaan muddo hal saac ka yar ayaan ku dhalinsanahay xaaladda horta xaalad abni waayen abnigana dawladda mas'uulka ah marka wuxuu u baahan yahay waxa loo baahan yahay ama hore loogu baahnay in la difaaco deegaanka horta in la difaaco loo baahnay teedaan intaan dawladda imaanin macawsleeya ku dagaalantay shabaab intuu teedaan yimiday oo lagu la dagaalamay oo laga raacdeeyay oo ka maqnay sida asagoo uga maqnaa dawladda timid dalishan qabnaa intaas waay haddii marka hadeer aan joogno dawladda laga rabaa dalka inay ka maaragtay ka difaacdo cadowga dawladda laga rabaa iyo jid la'aan waliba qof meel xataa gaadiid mari kara xitaa dad oo laga doono xitaa dadan jirin oo doorka kala galay dawladda markay soo degtay taadaan xoray ahaaday shabaab ma joogin mana imaanin dawladda markay soo degtay ayadoo xor ah oo teedaan wax shabaab oo aanay deganayn oo xabad oo aanay ka dhacanay dawladda la wareegtay degtay waxaa dhacday marka in meeshii xor ahayd oo iyadoo xor ay yimideen inay haddana dawladda u gacan geliyaan shabaab haddana inay u gacan geliyaan horta al-shabaab marka ugu horeysa teedaan xor ay ahayd markay dawladda soo degtay ayay naga heleen oo ama sirdoona ama maaragtay oo kaleeto oo maaragtay ama ciidanimo ha ahaato ama sirdoon ha ahaato ama wax kastaba ha ahaatee muddo intaas dhan marka oo hal sano ku dhow dawladdii deganeeday oo logistikadeeda iyo saadkeeda iyo saanadeeda iyo maaragtay wax walba hawba ay u dhameystiran yihiin oo difaacyadii qodato macluumaadkii iyo sirdoonkii iyo dadkii fahamkiisa weliba anaga haddaan nahay dadka shacabkaas si aan caadi ahayn aan ula shaqaynay waxaan ula shaqaynay si maaragtay oo si allaale iyo wax allaale waxay doonayeen oo dhan sababta marka dawladda ay taadaan uga guurtay sababta dawladda taadaan uga guurtaan isweydiinaynaa hadda ilaa saaca waxa uu noqon karaa ma jiraan walaalo waxa la ma balaba dadkaasi waxa la male hadda maaragtay maamul xitaa og oo maanta Hirshabeelle ama gobol ah ama degmo og oo xitaa meesha ay ku nool yihiin xitaa maaragtay iyo waxa ku dhacay xitaa og xitaa ma jirin marka dawladda markay timidna abnigeeda iyada mas'uulka ah iyada oo lagu wareejiyay maaragtay wixii maaragtay difaacana iyaga laga rabay in difaaceedaan la difaaco intii iska dayso in maxaas iyo muqkuri la qabtaan ahamigayna ahay oo shabaab laga saaro wadanka maxaas iyadoo adiga afar bilood maxaas markii la haastay kabacdii soo degan waa la intii ugu badnaay maahan boqolkiiba boqol hal qofba ka maharinaan ku dhihi karaaba teedaan wax ku haray maba jiraanba dadka deegaanka walaalo doorkay u kala yaaceen wax qorshe ay hayaan male laba qofood oo is wareysatay ma jirto marka dadkaas doorkay jiraan biyo la'aan iyo maaragtay dawo la'aan iyo gogol la'aan iyo hoy la'aan ay doorka la jiraan waxyaabaa kasoo kordhana wararkeena dib ayaan kula wadaagi doonaa